shantii sano la soo dhaafay jaakadan waa haystay, shaatiganna waa haystay. sidoo kale caagadan biyaha oo aad ii anfacdayna waan haystay 4 sano oo la soo dhaafay. dabcan waxaa ula jeedaa baahidaada sida uma leysid maaha, wax badan uma baahnid. bini'aadamka baahiyooyinka qaar asagaa sameeyo, haddana baahidii asaga sameeyey ayuu isku dayaya inuu daboolo. bini'aadamkana waa wax ku abuuran inuu wax aruursado. waxaan maraad u baahnaan doontaa, beriyaa laga yaaba inaad u baahnaatid, cabsidaasaa ku jirto. ilaahay qur-aanka markuu ku yidhi alhaakum takaatur, waxaa idin halaagay waxbadsiga xataa zurtum almaqaabira, ilaa qubuurahaad ka gashaan aad ka booqataan. ayaddaas laba macnay leedahay, inay tirsadeen dadkii dhintay, kan anagu naga soo jeeday intaan tiradeena ah, ama inaad ka dhimataan oo qabriga ka gashaan. qoraaha waxaa jirta internetkan ka arkay, waxay leedahay waa un laba shay. imaa inaad isku daydid in desireskaaga iyo baahidahaaga inaad dabooshid, ama inaad yaraysid. mana dabooli kartid. waxyaabaha ugu muhiimsan noloshaada maalka ma aha. inaad maal aruuriso oo noloshaada aad geliso, berika maalin waa ka tegaysaa. actually waxaa jira wax ka muhiimsan caafimaadka oo kale maanta kuma bedelanayo qofka adduunka ugu taajirsan haddii la yiraahdo caafimaada lagu siinaya, lacagtaada dhankeen wuu ogolaanayaa, markaasuu wuxuu haystay oo dhan uu ku dhiibaya. imaamu shaafici wuxuu leeyahay gabay uu tiriyey, fasurtu ghaniyan bilaa dirhamin amuru cala annaasi shibha almaliki. waxaan taajir ayaan noqday anoo dirhamna haysanin, lacagna haysanin, markaasaan dadka dhex mara anigoo sida boqorkii oo kale ah. qanaacada iyo inaad ogaato waxaad haysatid inay kugu filnaadaan ayaa taajirnimo ah. badankan waxaan sameynaa marka inaan wax soo aruursano, baahiyooyin aan sameyno, mararka qaar lacagtaan kusoo gadayna lacagaan usoo rafaadnay waaya, ama qof kale usoo rafaaday. arrinkaa markaan ku baraarugay, waxaan sameeyey inaan baarbaaro declarer waxay dhahaan, oo in alaabta lakala bixiyo la ogaado waxaad u baahan tahay oo noloshaada inaad soo reebato keliya wax oo nacfi ku siinayo oo ku adeegayo, wax ku tarayo. markaasaan dharkayga oo dhan intaas soo bixiyey, aan iri niyow kan goormay ugu dambaysiinaa xirto, kan ma u baahanahay. intaan kala shaandhiyey aan nambar u sameeyey, yacni shaatiyaashayda hadday 4 ka bataan, mid kalena aan rabo inaan soo gato ama hadiyad liigu keeno, midaan ka bixinaya. sababtoo ma isticmaalaya intaas ka badan. marka waxaan soo reebtay keliya intaan jeclahay oo mar walba aan isticmaalo. sidoo kale waxaan sameeyey alaab, waxaan lahaa waan kala shaandheeyey. apple watch oo kale, saacadda oo smartwatchka ah, waxay iisoo kordhinayso ma arkin, faa'iido kuma arkin. ma keliya inaa iska haystaa boos iga buuxisa. marka nolosheen waxaa ku jira waxyaabo badan aan u baahnayn oo maaragtay inaan ka xuroono, alaabta inaan ka xuroono. qoraaha waxay jirto aan arkay ayadana, waxay leedahay love people and use things because the opposite will never work. yacni dad jeclow alaabna isticmaal, kasoo horjeedka ama cagsiga weligay ma shaqayso. yacni inaad alaabna jeclaatid, dadna isticmaashid. marka ka xurow alaabta iyo adduunka waxaa yaala, intaad ka maarmi kartid samee lacag, laakiin qalbigaaga ay degin. assalaamu calaykum waraxmatullah.